بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad ku soo dhawaataan cashar kamida casharaankii aynu qaadan jirnay ee barnaamijkeeni Microsoft Office Access casharkani waxa uu yahay mid ku sii xidhan casharkii hore sideen loo wada soconay casharkeeni hore inay taagnaa waxa jirtay column-ka loo yaqaan shift oo aynu ku soo qornay data type aynu siinay gaar ah kaasoo ahaa date and time sida calendar-kaasba marka uu soo boodiyo taas inagu aynan u baahnayn inaynu gelino qoraal halkaas oo inay saari qaladkan marka haddii ay rabtid qaladka sharaxaad dheeraada halkan ku sii dhufo halkan ayaad ka heli doontaa caawimaad dheeraada okay haddii kale waxaad samaysaa waad markaa fahantay waad bedeli kartaa haddaba sidaad u bedeli kartaa data type-ka ayaa casharkeenu maanta ka bilaabmaya horaantii marka ugu horeysa waa inaad siisaa wuxuu kaaga baahan yahay marka koowaad wuxuu nooga baahan yahay sida uu markaaba inoo soo tuuray halkaa yar calaamada inaynu siino date and time marka mid kamid ah geli kabacdina iska soo xidh markaad soo xidho waxaad timaadaa table-kaagii right click ku dhufo kadibna waxaad tiraahdaa design view markaad timaadid halkay ku qoran tahay column-kii kaa qaldanaa magaciisa oo ah shift soo fur kadibna ka bedel data type-ku waa waxa siinaya ama data type uu computer-ka akhrisanayo ee haddii waxaan ahayn aad gelisid diidayo marka imika sidaynu noo diiday markaynu date and time-keenu gelinayba si lamid ah haddii aynu gelino waxaan ahayn long tags ama short tags waana diidi doonaa marka short tags-kaas aynu gelinaa kabacdi table-keena ayaynu soo furnaa double click baan leenahay kabacdi halkaa markaynu soo furno waynu ka baabinaynaa taariikhda ku qoran tagas ayaynu gelinaynaa markaas si toos u aqbalay markii hore laakiin markaynu mouse-ka saa ugu soo qaadnaba qalad baynu ugu soo qabanay imikase si toos ah ayaa ugu aqbalay intaa markaanu samayno waxaanu ku xigsiisanaynaa haddii la yiraahdo table-keena ama database-kan aynu samaynay table-ada ku jira table-keena u horeeya ayaynu magaca ka bedelnaa marka horta kan koobaad aynu isku soo xidhno sidoo kale horta aynu soconno in waxaa la wixii table ah aynu samaysana ay qaybtan maran inoo soo geli doonaan hal table ayaa inoo samaysan imika right click ku dhufo kabacdi aad ku dhufataa rename macnaheedu waa maxay magaca ka bedel weeyaan magaca ka bedel keyboard-ka F2 waad ka taaban kartaa maxaa ku rahday right click kadibna rename waad taaban kartaa qaybta F2 aynu ku yeerno soo fura markaa double click sino aragno magaca uu ka bedelnay oo ka halkaas sare inoo soo baxay magacii aynu u bixinay okay xaga waxaynu ku dhameynay laba cashar diiwaangelinta in magac ka bedelnay oo kala ah iyo column-ka anaga qaldanaa oo aynu saxnay okay waxaynu intaa ku xigsiinaynaa sideeba loo sameeyaa column cusub meesha la soo geliyo imika ardayga lambarkiisii iyo magaciisii maadadu dhiganayay fiigii halkaan ku soo darno labada dhexdooda fasalka oo ardaygu noqonayo marka ka doonaysid inaad ku soo dartid ka midigta ka xiga ayaad right click ku dhufanaysaa intaad isaga dooratid kabacdina insert field ayaad leedahay fiilka ardayga muuse oo kale fasalkiisa tusaale waa fasalka labaad ninka kale fasalkiisa waa fasalka koowaad ninka kale fasalkiisa waxaynu oranaa tusaale sigana waa fasalka saddexaad waxaynu sameynaynaa marka halkaa ay ku qoran tahay field ayaan iyadana lafteedana magaca ka bedelnaa marka si aad magaca uga bedeshid waa inaad taabooyinka qaadaa kow right click ku dhufo kabacdina rename field halkay ku qoran tahay ku dhufanaysaa sidoo kale waxaad samayn kartaa iyada lafteeda magaca horta ka bedel waxaad ku qortaa class waxaad samayn kartaa markaad magaca ka bedelisid double click ayaad magaca ku dhufan kartaa kadib ayaad magacaad u baahan tahay ku qoraysaa marka class noo ku deynayaa class-kaas ayaan fujinayaa marka aad rabtid inaad hal arday oo kamid ah ardaydaada aad ka saartid meeshii mase aad qoraal kamid ah qoraaladii aad delete garaysid waxaad samaynaysaa qoraalka aad rabtid inaad delete garayso ayaad soo dooranaysaa row-giisa marka row waa wixii hadsan u jiifa kaa ka bilow ilaa iyo halkaa column-na waxa weeye halkaas wixii ku jira imika wixii v ku jira oo dhan waxaa hoos imanaya wixii column ah
halka lambarka 4 ay hoos imanayaan magaca computerka maadada fasalka lacagta taariikhda gelinka iyo inuu bixiyo kale marka waxaasoo dhan hoos imanaya column waxa uu noqonayaa joogtax buu noqonayaa column haddii aad maqashid waa joogtax halka rowguna uu yahay jiiftax oo qoraalka ayaa si jiifa loo taxayaa halka kalena halka column-kana la soo dhigayo oo joogtax loo qorayo markaad rabtid inaad cid meesha ka saartid column ka mida column-yada baad taaban rowga mid ka mid uma dooranaysaa khaanadiisa ama seelalkiisa kabacdina home tab ka dhimanaysaa halka ku qoran tahay records ama group loo yaqaan aad isha delete soo yar furaysaa isha soo furaysaa kabacdina delete record baad leedahay waxaan aragno dhamaanteen uu ka wada baxay meesha okay haddii aynu mid kale ku celino waxaad tagaysaa home kadibna waxaad dooranaysaa isha kadibna delete waxaad la socotaa mar walba haddii wax la delete gareeyo numberku isma bedelayo sababtoo ah markaynu soo sameynaynay halkan ayaynu ka dhignay auto numberka si automatic ah inuu u qaato numberku haddii wax kale ka dhigi lahayn inagu ayaa lambarantu ay 1 haddii la delete gareeyo 1 ku sii joogi lahaa laakiin hadda ma sii joogayo marka lambarkii ardayga kale la socdan baa dib u soo raacayo sidoo kale waxaad samayn kartaa iyadana talaabo kale oo aad ku qarinaysid kolomyada ardayga qaar kamid ah oo sir ah oo kala soconaan ardayga hadduu lacagta bixiyo oo kale waad leedahay waa inaan hard garaystaa kabacdi waxaad tegaysaa haddaad u baahan tahay sida home-ka kadibna halka ay ku qoran tahay recordska groupka isha more ayaad soo furaysaa kadib waxaad taabataa hide fields dib waa sidaynu wada aragno waa uu kuu qarsoomay si kasta oo samaysidna fud suurtagal maaha qofka soo horfadhiya computerka inuu arko markaad soo celinaysidna waxaad tegaysaa halkii home kadib more and hide baad leedahay sidaan la wada socono halkan waxay noogu qoran dhammaan kolomyada inoo soo muuqda oo dhan tig baa wada saara haddaan mid kamid ah ka qaado u baaba'aya marka adiguna kaad qarayso waad garanaysaa waana kaa bilaa tigta ah tigta baad saaraysaa kabacdina close baad ka soconaysaa saas kugu soo muuqanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan maanta joojinayna